Assalaamu calaykum. Waa mowduuc ku saabsan hay'adda Save the Children. Mowduucan ayaan kaga ogaan doonaa hay'addan dhinacyo kala duwan, aas-aaska iyo asalka hay'addan, iyo xilligii la bilaabay, iyadoo mucaawino gaadhsiisa dad fara badan oo carruur ah oo adduunka ku nool. Haddaba, maxay qabataa hay'adda Save the Children? Hase ahaatee, xillima ayaa la aasaasay badbaadinta carruurta. Mid kasta oo ka mid ah dhowr hay'adood oo madax bannaan oo ah iskaa wax u qabso oo doonaya inay u fidiyaan labada masiibo iyo gargaarka muddo dheer ah ee carruurta liidata ee adduunka oo idil. Ururka asalka ahaa badbaadinta carruurta waxaa lagu aasaasay Britain Garrett sanadkii 1919 waxaana aasaasay Eglantine Jane Jebb iyo walaasheed Dorothy Buxton si ay gargaar ugu fidiyaan carruurta ku gaajaysan ee ku nool Jarmalka iyo Australia iyo Hungary intii lagu guda jiray godoominta xulafada, taasoo sii socotay dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka. Ururku wuxuu markii dambe u bandhigay walaaca uu ka qabo badbaadinta carruurta adduunka. Ugu dambeyntiina wuxuu fidiyay adeegyo caafimaad iyo daryeel ilmo kaalmeyn ah, nafaqada iyo is-caawinta qoysaska, iyo mashaariicda horumarinta bulshada. Xaddiga xuquuqda carruurta ee uu qoray Jebb oo loo yaqaano Baaqi Geneva 1923 waxaa qaatay ururka qaramada midoobay sanadkii 1924, kadibna wuxuu aasaas u noqday Baaqa Xuquuqda Carruurta oo ay meel mariyeen Golaha Guud ee Qaramada Midoobay 1959 iyo Heshiiskii Xuquuqda Carruurta 1989, kaas oo ay ansixiyeen ku dhowaad dhammaan wadamadii xilligaas ku sugnaa goobta adduunka. Badbaadinta carruurta xaqiiqooyinka degdega ah. Taariikhda 1919 waa joogitaanka aagaga ay markaasi qabteen barnaamijka daryeelka bulshada iyo qaxootiga iyo dhalinyarada. Aasaaska sanduuqa badbaadinta carruurta kadib, kooxo la mid ah ayaa kasoo ifbaxay dalal kale oo ay ka mid ahaayeen Mareykanka sanadkii 1932, ayaga oo loo abuuray sanduuqa caalamiga ah ee badbaadinta carruurta ee Mareykanka oo markii dambe loo bixiyay Save the Children sanadkii 1979. Urur qaar oo ka jira dalal dhowr ah ayaa aasaasay isbahaysiga badbaadinta carruurta oo markii dambe loo bedelay badbaadinta carruurta caalamiga ah si ay isugu dubaridaan howlaha gargaarka ay wadaan. Horaantii qarnigan 21aad, badbaadinta carruurta caalamiga ah waxay ka kooban yihiin ilaa 30 koox oo qaar oo ka howlgala ilaa 120 dal. Laga soo bilaabo sanadihii ugu horreeyay, badbaadinta carruurta waxay adeegsatay farsamooyin lacag ururin iyo xayeysiinta hal abuur leh oo ay ku jiraan kafaalo-qaadista shakhsiyaadka carruurta ah ee loo aqoonsaday deeq-bixiyayaasha, xayeysiinta wargeysyada oo buuxa ah, iyo filimada waxqabadka hay'adda ee macluusha iyo gargaarka. Ururada badbaadinta carruurta waxay inta badan ku tiirsan yihiin tabarucaadka samafal gaar loo leeyahay, maalgelitaanka iyo maalgashiyo gaar loo leeyahay. Ururo aan dowli ahayn, qaar badbaadinta carruurta iyo sanduuqa duurjoogta adduunka waa xiriiro caalami ah oo ka kooban kooxo qaar. Awoodaha xulafada wadamadaas oo isbahaysta oo ka soo horjeeda quwadaha dhexe, Jarmalka, Australia, Hungary. Dagaalkii Koowaad ee Adduunka oo ahaa isku dhac caalami ah oo u dhex marayay inta badan quruumaha adduunka. Inta badan hay'adaha samafalka waxay hoos tagaan Qaramada Midoobay si buuxda marka la eego xubnaha hay'adaha isku dhafka ah ee adduunka ka kooban. Wadamo fara badan oo isbahaystay oo markaasi hay'adahan ay u qaabilsan yihiin caalamiga, kuwaas oo ku dooda inay u ururiyaan dhaqaale oo iyagoo markaas uga soo xodanaya in la maalgashado iyo sidoo kale inay ka helaan deeq-bixiyayaasha ama wadamada markaasi horumaray in ay dhaqaale ka helaan kadibna ay ku sii bixiyaan oo ay wax ugu taraan dadka tabaaleysan. Ama markaasi Save the Children oo kale, hay'adda caalamiga ah ee dhinaca carruurta oo hoos tagta Qaramada Midoobay oo u sharciyeysan. Waxaa jira hay'ado kale oo fara badan oo qabta howlo fara badan oo hoos taga Qaramada Midoobay, kuwaas oo dhammaantood madax bannaan. Hay'adahaasna waxay qabtaan howlo kala duwan
oo markaasi loo igmaday inay qabtaan. Intan ayuu ku egyahay mowduuca ku saabsan Save the Children.